السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa dhici karta inaad marar badan aragtay dad cidiyaha dheeraysta ama cidiyaha la baxa. Haddaba arrinta ku saabsan in cidiyaha lala baxo ama cidiyaha la dheeraysto waxay asalkeedii hore ka timid waddanka China. Xilliyadan dambena meelo badan oo adduunka ka mid ah waxaa ka jira in cidiyaha lala baxo ama cidiyaha la dheeraysto. Waxaana dhici karta inay dadka qaarkood ka dhigtaan qurux inay cidiyaha la baxaan. Haddaba in cidiyaha la dheeraysto ama cidiyaha lala baxo, diinteena Islaamku way inoo diiday sababahan awgood. Waa ta koowaad in qofku cidiyaha dheeraysta waxay keeni kartaa inay cidiyahaasi u soo jiidaan jeermiska iyo bakteeriyada, gaar ahaan xilliga uu cuntada cunayo. Waxaa kaloo diinteenu inoogu diiday in cidiyaha lala baxo iyadoo la diidayo in qofka Islaamka ah isu ekaysiiyo dadka aan Islaamka ahayn, iyo in qofka Islaamka ah isu ekaysiiyo xayawaanka. Waxaa kaloo dhici karta qofka cidiyaha dheeraysta inuu ku dhaawaco ilmaha aadka u yaryar xilliga uu xanaaneynayo ama uu hayo isagoo aan dareensanayn. Wax kasta oo diinteena Islaamku inoo diidayna waa wax dhib inoola aakhire iyo adduunba. wax kasta oo diinteena Islaamku ina farta inaynu sameeynaana waa wax ina anfacaya aakhire iyo adduunba. Dhinaca kalena, inta badan urta ka soo baxda dadka qaarkood afkooda waxa sababi kara waxyaabo kala duwan. Waxa sababi kara hadhaaga cuntada ee ku hadha ilkaha dhexdooda oo aan laga nadiifin, kuwaasoo sababi kara inay bakteeriya ka dhalato. Waxa kaloo sababi kara infekshanka ku dhaca dhuunta iyo sanka iyo xanuunada ku dhaca ciridka. Waxa kaloo sababi kara mashaakil ka imanaya dhinaca caloosha. Waxa kaloo sababi kara cabitaanka sigaarka iyo wixii la midka ah. Waxa kaloo sababi kara qalal ku dhaca afka, taasoo ay sababaan dawooyinka la qaato qaarkood. Haddaba urtan aan fiicnayn ee ka soo baxaysa afka waxaad ku daweyn kartaa qaab dabiici ah adigoo gurigaaga jooga. Si aad arrintaa u samaysana, waxaad soo diyaarsataa malqacad yar oo malaba iyo koob kaabarkii oo biyo diirana iyo koob kaabarkii oo aad ku shubtay biyo aad ka toojiso liin dhanaanta iyo malqacada yar barkeed oo qarfa ah. afartaa shay oo aad isku shiiday waxaad u isticmaalaysaa luqluqasho ahaan mar kasta oo aad cadayato kadib, waanaad wadaysaa ilaa inta aad ka xaqiiqsato inay kaa tagtay urtaasi.